mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Nowdal ayaa maanta waxa ay munaasabad ku qabteen hotelka Mana Guest House ee magaalada Boorama waxaana munaasabadan lagu shaaciyay in xanuunka dabaysha laga helay gobolo kamid ah dalalka Soomaaliya iyo Kenya isla markaana wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ay go'aansatay in talaalkaasi maalinimada baritaan laga bilaabo guud ahaan Somaliland gaar ahaan gobolada Nowdal iyo Salal waxaana munaasabadan ugu horeyn ka hadlay Abiib Aadan Nuur oo ah madaxa talaalka Somaliland wuxuuna ka deegaanada laga helay xanuunkan dabaysha iyo sida wasaaradda caafimaadka ee Somaliland ay ugu dhiiran tahay in caruurta ku dhaqan Somaliland ay ka badbaadiso waxyeelo ka soo gaara xanuunkan dabaysha fayrasku guuraya border ma laha meel xadad kala xirxiraya ma jirto fayraskan imika Soomaaliya haysta waxa laga soo waariday oo laga keenay Nigeria Western Nigeria UK ilmihii horeeyo ku dhacay 13 jir boo daada 5 sano uu ku yimid saacada imkaan marina waxay marayaan 12 qof marka uu ku dhaco qofka talaalka uu ku dhaco fayraskaasi qofka qof case la helo waxa uu dhex wareegayaa oo kare 200 caruur oo ku wareegsan ayuu fayras ku jira sidoo kale madaxa hay'adda WHO ee gobolkan Mudane Saciid Bila Buraale oo isaguna madashan ka hadlay ayaa waxa uu ka waramay dhibaatada uu xanuunka dabaysha leeyahay dadka waaweyn inaba caruurtu ma nagijino shan laakiin dadka waaweyn laftooda ku dhacaysa qofkii aan hore loo soo talaalin yaraantiisii waxa sugaysaa daa markuu gaaro inay kaga dhici doonto dad caruurta ay kaga dhacayso lugtiga gacanta iyaga waxay kaga dhici doontaa sababka ayay baaranays kiimaysaa lugtiga gacanta sababada iyagana fariisan doonto isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkan Dr. Cabdiraxmaan Jaamacadi oo gabagabadii kulankan kula hadlay ka soo qaybgalayaashii xafladan ayaa waxa hadaladiisa kamid ahaa haddii ilmahaasi laga talaali waayo waxa gaari doonaa waa dhib joogta oo aanan dib dambe aan looga daaweyn karin laba dhibcood ayaa kaa badbaadinaya ilmahaagii oo 30 sano haddii waqtigiisuba gaarsiiya hadduu noolaado adkaadiyo xarba ka qaba dhaareel meeran noqoto oo ilaa murqihii shaqaynaya oo dhan ayuu baabiinayaa xididadii neerfiska ay nula jireen wada garanayo ayuu baabiinaya markaa bulshooyin hadduu cadowgii eeriyadan ku wada wareegaysanayo haddaynaan hub ka samaysan oo aynaan iska difaacin dee maalinta ku soo galo difaac damba male Cabdi Fataax Axmed Hadwanaag News magaalada Boorama.